1500 oo qoys oo ku nool xerada dadka soo barakacay ee Rabitoog kuna yaala degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir ayaa xilligan wajahaya nolol xumo aad u daran. 800 qoys oo kamid ah ayaa halkan soo gaaray tan iyo bartamihii bishii la soo dhaafay ee sanadkan, iyagoona ka soo cararay abaaraha iyo colaadaha isbiirsaday ee ka jira gobolada Shabeellooyinka iyo sidoo kale gobolka Baay. dadkan oo intooda badan ahaa beeraley iyo xoolo dhaqato ku tiirsan wax soo saarkooda ayaa Risaale TV u sheegay inay tahay markii ugu horeysay oo ay maciin bidaan nolosha xeryaha barakaca maadaama ay noqdeen cayr. Aamin Cali Cabdullaahi waxa ay kaamka Rabitoog soo gaartay toddobaad ka hor, waxa ayna sheegtay inay ahayd beeraley iyo xoololey isku filan markii ay ku nooleed miyiga gobolka Baay, laakiin hadda aysan haysan wax ay cunaan marka laga reebo in dadka deriskeeda ah oo mararka qaar ay ka hesho xooga cun ah. waxa ay tilmaamtay inaysan aqoon badan u lahayn magaalada, balse ay jirto in gabdho ay ayeeyo u tahay ay magaalada u faalalaan si ay dadka ugu soo dhaqaan dharka, laakiin mararka qaar aan la helaynin. Alhamdulillah anta kooyni dhibaatina hayt bil dhiba qabna ilmoosi shagan ka bahan sida ko kooyo hoyan wala hawayni yadi leeg gaajin haynu gaayada en niman xoolo dhaqata ahayd mise beeraley dhaqata iyo beeraley ahay inta waa ahayd hadda xoolaha xagii ku dambeeyay waa dhamaadeen abaara dhamaysi xoolaha abaara dhameeyay beerihiina beerahan roob la'aan heelana waa dhamaadeen abaarta dhamaysi. Alhamdulillah anta kusugnahay shalay wacuni maanta wax ma leh maanta waxa weeyse mana jirto cid ku dhaqaaqayso hadda magaalada ku dhaqaaqayso ma joogto aabo. halkan oo ah kaamka Tala Rabbi oo ku yaala degmadan warta nabadda ee gobolka Banaadir waxa ku sugan dad Soomaaliyeed ee halkan baahiyo ku hayso, dhamaantood waxa ay ka soo barakaceen gobolada Shabeellooyinka, Baay iyo Bakool. sidoo kale waxa ay sheegeen in maalmo kooban ay halkan ku sugan yihiin, iyagoona dawladda dalabyo kala duwan u jeediyay oo ay ugu badan yihiin caafimaadka, waxbarashada iyo cunnada intaba. Xaliima Abuukar Xuseen oo ah barakaca cusub iyo Ibraahin Xaaji Abuukar oo isna muddo ku nool kaamkan ayaa sheegay inay nolol ahaan ay yihiin kuwa aan islaamin, iyadoona dadka deegaanka ee u dhow xeradan xooga caawinaad ah ay gaarsiiyaan, haddana ma ahan mid kaafisa. Shabeellaha hoose ka yimaad haye dhammaan dadku soo baxeen mise kaliya ka yimaada aan kaliya ka imid tagal xaalmeeyo jiraan anagu waxaan Soomaaliland wax nool qabto dadka hore u dignaay iyo dad kale oo magaalada oo magaciisa suuqyada ay joogan iyo kulli aan la kaashanay ayaan dadkan u gurmanay sidaan ugu soo magaciisa aruurnay kiilo bariis iyo 2 kiilo waxay noqoto bur dar waxay noqoto soo aruurnay. sanada abaara ayay ku noolaayeen gobol aan lahayn geed la goosto, laakiin waxa ay rajeynayaan wali inay dib ugu laabtaan haddii uu isbedel ku yimaado deegaanadii ay abaarta uga soo tageen. Said Ahmed Cabdullaahi, TV-ga Risaale, Muqdisho. bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus. waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. macaamiil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 ah. sidoo kale macaamiil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah. macaamiil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn. macaamiil uga shubo xirmooyinka adeega Dhamays Plus adeega idahab code numberka xidig 114 gees, adeega idahab reseller code numberka xidig 304 gees. ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees. macaamiil xirmooyinka adeega Dhamays Plus nafsadaada ku soor.